roosaha waa wax laga naco muddayo markaan si u fiiriyo waxaana keeni karaa hoos u dhac aad u weyn iyo qiimaheena inaan hoos u dhigo marka kulli waxaan dhihi karaa wallahi roosaha waa xanuun balse waan eegi doonaa ciyaarta meesha ku dhammaato sidaan hore u sheegay in labadooda guul iyo guuldarro ku joogaan labada naadi kubadda ayadaa cad iyo madow ah kooxda xulka degmada Dharkiinle waxay sameyn doonaan bedelkii saddexaad ee markaasi qaybta labaad ciyaartooyga lambarka 12aad ee degmada Dharkiinle ayaa soo gali doona laacibka markaasi lagu magacaabo Abukar Umar Cadow ayaa soo gali doona waxaana markaasi ciyaaryahankan ayaa bedel markaas ku soo gali doona xulka degmada Dharkiinle waxa ku soo gali doona bedel ciyaartooyga lambarka 12aad ciyaaryahan Xuseen waxa uu qaatay calaamadda casaanka ayuu qaatay waxa uu noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay oo taariikhdeebad qaata jaalii koowaad roosii koowaadna sidoo kale qaata iyadoo waqti badan uusan u dhaxayn ciyaarta furitaanka ciyaaryahan Xuseen Ahmed Cabdullaahi waagaag daawadayaal ciyaarta waa gool iibir degmada waa bari sidoo kale degmada Dharkiinle waa bari ciyaarta waxay maraysaa daqiiqadii 51aad waana markaasi gool iibir waatahay markaan ciyaaryahanka lambarka 12aad ee degmada Dharkiinle ayaa bedel ku soo galay xulka ka socda ama ku yaala cirifka dhanka koonfurta galbeed ee Muqdisho ayaana markaasi gool ugu leeyahay waxaana ku leh xulka degmada waa bari oo meelo kala duwan caan ku ah iyadoo degmada waa bari ay markaasi caan ku tahay ciyaaraha iyo sidoo kale isdhexgalka bulshada ciyaartooy kala duwan ayaana soo maray xulka degmada lagu magacaabo waa bari haddaan xusul laacibiintii hore degmada waa bari waxaa ka mid ah لاعبكي لغو مغعاب جرى الشيخ أو مدبعة كمدا حسين علي ويكي أو إساق هروق سوع يارك وحاد دلك ولالكي عمر علي ويكي سيدو كلي ويريان كي كوحدة مدبعة إنو أليس مركان عيار توقع دقمدا وابري أليس أي سميين سيدو كلي حلقة دقمدا وابري وعاسو مري عياريان كمركاسي لغو مغعابو إنو سيدو كلي أبو كريسلو أيا كمدا عيار تويدي هوري ee kooxda madbacada sidoo kale waxa soo maray killer oo kooxda batroolka u ciyaari jiray waa bari kubadda markaan way soo saartay garoomo kala duwan ayaa ku yaala degmada waa bari garoonka Cali Boolay iyo sidoo kale salaxyo kala duwan oo 15 salax kala dhaafaya waagaag garoonka Toy ayaa sidoo kale kamid ah garoomada lagu ciyaaro kubadda cagta ee degmada waa bari ku yaala waagaag markaan Baawul waxa laga dhigay ciyaartooyga degmada waa bari Dharkiinle markaan Baawul ayaa loo dhigay waxa kubadda sameey doona ciyaartooyga lambarka 6aad Faarax ayaa kubadda u deystay saaxiibkii si kubadda loo holgeliyo Dharkiinle waxay raadinaysaa kubadda barbaraha inay markaas hesho kubadda markaan waa la soo qaaday ciyaartooyga degmada Dharkiinle madaxa markaan ugu dambeyntii ciyaartooyga degmada waa bari way soo saareen waa bari waa Rio de Janeiro Muqdisho waa bari waa degmo markaas banooyga aad loogu xiiseeyo saddexdii degmo ee ugu dambeysay la qabtay finalka ay soo gaareen iyagoo qaadakii ugu dambeeyay halkan lagu qabtay habeen taariikh ayaana soo maray difaaca degmada waa bari markaan ugu dambeyntii kubadda uu saaray waxay ku qaadataa xulka degmada waa bari banooniga ugu dambeyntii way saareen daqiiqadii 54aad ay daawada ciyaartu maraysaa waana gool iibir daqiiqadii 54aad ayay ciyaartu markaas maraysaa haddaan ku laabto xulka degmada waa bari waxyaabaha ay caan ku yihiin waxaa ka mid ah degmada ayraada degmada Dharkiinle waxyaabaha caankii ku yihiin waxaa ka mid ah garoomada baadii hore sportska sida Ismaaciil Malaakh Abukar Senegal ciyaaryahankii hore kooxda batroolka sidoo kale Macalin Cabdi oo isaga markaas ciyaaryahankii hore kooxda madbacada sidoo kale gaduud oo ciyaaryahankii lagu magacaabi jiray Mustafa Fransa Abdigaab Ahmed Abdallah Allah ya rahma iyo sidoo kale laacibiin kale oo kamid yahay Macalin Musa isna Allah u naxariistay Shinkis ayaa sidoo kale kamid ah baada sportska qabiirka degmada Dharkiinle iyo sidoo kale Macalin Umow oo isaga markaasi ah ciyaartooy hore oo kooxdan soo martay ama ciyaartooy hore oo degmada Dharkiinle soo martay degmada Dharkiinle waxay ahaanatay koobkii degmooyinka 2012 tartan aqooneedkii sidoo kale way ahaanatay degmada lagu magacaabo Dharkiinle وهجاك كونتني شندق أي مرة ساعيات تمركن بنونيجا مركن وحاسكل عيات توجا كحدة وابري مركن بنونيجا ويسوق هذين وقدامين بناك هي مرتو حسول قريدونا
golayaha degmada dharkeenley cabdulqaadir cabdulaahi muuse hal iibar ayay maraysaa gool u dhaliyay ciyaartooyga lambarka saddexaad sulaymaan saciid cali ayay ku hogaaminaysaa xulka degmada lagu magacaabo waa beri oo iyaga daafacanaya tartanka degmooyinka saddexdii sano ugu dambaysan imaanaya finaalka tartanka degmooyinka xulka degmada dharkeenley markaan dhanka garabka ayay soo dhigteen kubadda markaan weerar ayay wadaan oo halis markaan dharkeenley weerar ayay ku jirtaa ugu dambayntii bannaanka ayay kubadda markaan soo martay weli dharkeenley weerar ayay ku jirtaa laakiin waa beri waa ay soo difaaceen 56 daqiiqo ayaa maraysa ciyaartu waa gabagabo waa beri ayaa ku furo doonta guul haddii sidan ciyaarta ay ku dhammaato waa beri ayaa ku furo doonta guul haddii ciyaarta sidan ay ku dhammaato halka sidoo kale degmada dharkeenley ay noqon doonaan xulka ugu horreeya laga badiyo tartanka degmooyinka haddii sidan waxay u dhacaan galabta inkastoo uu sameeyey dadaalo kala duwan tababare ismaaciil iyo sidoo kale guddoomiyaha degmada lagu magacaabo dharkeenley macalin carfaaye haddana xulka degmada dharkeenley galabta fursadda way saacidi leedahay sidoo kale dharkeenley waxay haystaan ciyaartooy taalanti ah oo aad u wanaagsan waa hagaag khadar bal ka waran ciyaarta gabagabo waaye halkan gool ma lagu kala bixi karaa wallaahi waxaa is dhihi karaa kolley ciyaarta maadaama ay gabagabo tahay taymkii oo aad inoo haya labada kooxna weerar iyo weerar celis ay isku hayaan kolley waxaa is dhihi karaa ciyaartan barbardhac ayay ku dhammaan doontaa haddaysan barbardhac naqanin guusha xaggeen noqon doontaa labadana guul iyo guuldar labadaba waa hagaag ciyaaryahanka lambarka sideedaad ee lagu magacaabo cabdiraxmaan cabdulaahi faarax ayaa markaan dhaawac u soo gaaray xidiga lambarka sideedaad kabtanka hogaaminaya kooxda degmada waa beri waa bilizoon kaloo halis ah bilizoonkan waxuu noqon karaa mid gool loo bedeli karo hadday ka faa'iidaystaan ciyaartooyga degmada waa beri ciyaaryahan cabdiraxmaan ayaa markaasi qadka dhexe u maareynayay kooxda degmada waa beri waana hogaamiyaha galabta kooxdana hogaaminayay dhaawac ayaana soo gaaray waa mid ka mid a ciyaartooydiisa hesha sanadkii la soo dhaafay inay qaadaan xulka degmada waa beri tartankii degmooyinka bilizoon ayay markaan tuuranayeen ciyaartooyga degmada oo lagu magacaabo waa beri waxay samaynaysaa bilizoon markaan waxaa tuuri doona ciyaartooyga lambarka labaad ee degmada waa beri oo lagu magacaabo cabdulaahi cabdi maxamed halis golayaha lagu magacaabo cabdulqaadir ayaa ka labalabeeyey kubadda inuu qabta laakiin ugu dambayntii waa uu soo saaray waa hagaag markaan dharkeenley weerar ayay ku jirtaa weerar dharkeenley weerar weli dharkeenley weerar waa laga soo saaray qalad ayaa markaan loo dhigay ciyaartooyga degmada waa beri dharkeenley ayaana kubadda markaan laga dhigay daqiiqadii 53aad lagama faraxsana meelo badan oo degmada dharkeenley ku taalla suuqyaraha ceeldheere sidoo kale dabaqayn waxyaha kala duwan ee degmada dharkeenley saldhig galbeed iyo meelo kala duwan ayaanan maanta laga faraxsanay marka loo fiirso natiijada ay ku bilowdeen ciyaartooyda degmada lagu magacaabo dharkeenley tartanka degmooyinka waa uu furma maanta ilaa ay waxuu socon doonaa muddo hal bil ah labada garoon ayaa lagu kala ciyaari doonaa heerka guruubyada halka sidoo kale knockout-ka marka uu gaaro lagu ciyaari doono garoonkan banaadir stadium waa hagaag 59 daqiiqo ciyaarta iberiye waa gool iber degmada waa beri ayaa markaasi goolkas kale ciyaaryahan sulaymaan ayaa loogu madcelinaya oo lambarka saddexaad u wata degmadan dhacda ayay taallaa markaan ciyaartooyga degmada waa beri bawl ayaa markaan laga dhigay xidigaha degmada dharkeenley ciyaartooyga lambarka 11aad ee degmada dharkeenley ayaana qaladkaa sameeyey laacibka markaasi lagu magacaabo mahad xaashi salaad oo ah ninka ugu daadiyar ee u ciyaaraya xulka degmada lagu magacaabo dharkeenley waa 16 jir waxaa lagu xasuustaa sanadkii la soo dhaafay inuu ka dhaliyay goolkii barbaraa xulka degmada kaaraan oo ugu dambayntii kaaraan ay ku badisay gool kulaadyo waa tahay 59 daqiiqo ayay maraysa ciyaarta daawada markaan gabagaba ayay ku dhowdahay dharkeenley markaan kubadda way soo sharaxaysaa bannaanka dhexda ayay taallaa markaan lambarka 7aad jaamac ayaa kubadda soo dhiibay halis markaan weerar waa kan haruun cabdisataar waa keli waa uu ka galay markaan halis kubadda halisa waa uu soo dhigay hobariska waxaa iska khasaariyey mid ka mid a ciyaartooyga degmada dharkeenley fursad dahabi ah fursad qaali ah gabdhaha taageersa xulka degmada dharkeenley way qanci lahaayeen haddii goolkaas u dhala lahaa laakiin ugu dambayntii waa laga saaray waxa uu ahaa weerar markaasi aad u halisa uu camiray laacibka lagu magacaabo haaruun cabdisataar bruniga markaan waa la soo qaaday hobariska madaxa ma aysan dhicin mar kale degmada dharkeenley weerar ayay ku jirtaa markaan laakiin ugu dambayntii ciyaartooyga degmada waa beri baraasiisha gobolka banaadir markaan kubadda ayagaa wata ciyaaryahan
صادق ayaa kubadda markaa wata waa bari ku ciyaaraysa 10 ciyaartoy ayaa wali hakinaysa xulka degmada dharkeeley balka waran 10 nin oo wali markaas laga dhalayo goolka wallahi waxa is dhigi kartaa kulli waa rag adag oo culus horana inta kugu sheegay labada degmo waa labadeeda degmo shacabkii degan waxna ku ahay magaalada ku ahay ayaga isku go'aashay sidii xaqiiqahaan la fiiriyo qofka meesha وهي مركان بلزون وايسو قادن عيارتوغا دقمدا وابري ugu dambeyntii may goolay Cabdulqaadir goolay Cabdulqaadir ayaa markaa badbaadiyay oo kamida xulka degmada lagu magacaabo waabari 60 ku daqiiqo maraysa daawada ciyaarta 60 ku daqiiqo maraysa ciyaarta xilli gabagabay maraysa daqiiqada kaliya ayaa ka dhiman in ciyaarta ay soo dhamaato wajigii labaad ee ciyaarta tartanka degmooyinka 2018 ayaana si toos ah maanta ugu furmay garoonka Banaadir Stadium waxaana tartanka uu noqonayaa mid taariikhi ah marka loo fiirsado uu furmay sida loo soo dhaweeyay ciyaartoyda sida markaas geedi socodka ay u sameeyeen sida ay u gaafoorayeen garoonka iyo sida ay markaas ugu soo qayb galeen qeybaha kala duwan ee bulshada weerar markaan dharkeelay ayaa wadata weerar markaan waa la soo dhigay Haroun Cabdisataar banaanka ayaa la soo dhigay ugu dambeyntii banaanka ugu dambeyntii xulka degmada dharkeelay wali iyaga ayaa banooniga wata waa kan ciyaaryaanka oo way dadaaleen xulka degmada dharkeelay laakiin waa nasiibka ayaa diidan waxaana ay wadaan fursado kala duwan oo weerar ah inkastoo markaas ciyaartooyga degmada waa bari xagga difaaca ay aad u wanaagsan yihiin xagga isfahanka waa hagaag laadaya markaan la tuuray laakiin xulka degmada waa bari way soo saareen daawada ciyaarta waa gabagabo waxaana markaas ay ku dhowdaayeen xulka degmada waa bari ay xaqiijiyaan anashada guusha koowaad ee tartanka degmooyinka iyagoo difaacanaya tartanka degmooyinka waa bari sanadkii la soo dhaafay oo dhan lagama adkaan ilaa ay gaareen heerkii ugu dambeeyay ay ku garaaceen xulka degmada hodan markaan dharkeelay weerar ay ku jirtaa laakiin ugu dambeyntii banaanka ayaa lagu saaray dharkeelay kubadda banaanka ayaa lagu saaray waayahay markaan ciyaartooyga degmada dharkeelay weerar markaan waa la soo qaaday banooniga markaan golayaha lagu magacaabo Zakariye Maxamuud Axmed ayaa banooniga markaan qabtay gabagabayay ku dhowday daawada ciyaarta walina waa gool yeeber oo xulka degmada waa bari ku hogaaminayso ciyaaryahan Suleymaan ayaa dhaliyay goolkii ugu horeeyay oo lambarka saddexaad u wata xulka degmada waa bari furitaanka tartanka degmooyinka sanada 2018 oo bulshada Soomaaliyeed ee ku nool Muqdisho dhan ay ciyaartan soo wada xaadireen oo hagaag كل يعني مر والبورت وريان هاي وريان حنا هاي بس هذه عيار قرحنا تعمل بس الجريا كل ساداش هذا رويد عليه ساداش إذا هرو أنت هرو شيء كل وايد على يسوي تكشف إنك استهرو كل شيء الشعب هو يود السمين بس خوف والبماشي دقيقة هاي لكن مر والبورت فالت ما حقلت تغيرنا من الأول صح واي بينتا ما صوت هذا عن برشلونة تغيير بينتا ما هن سببتها برشلونة تغييره كل بنوني واحد كحماس البلد معه وحن كفر حسنا هاي تيم كأني عن حفظوا ما الدنيا كواد ما تقول لي سقروف من هذا سقروف جلي حفلة يوريس هم مركي يوريس هم استاديوم سيد اللود سيد يار كلنا واحد ناس ما حد جارك سبناتي إلهي ودن كين ودي هاي القناة اللي يردهم حس عيارنا ولا يعرف تاس مرة ما دونتا وقت دو إسكي ما دونتا بس لبض بنا وفنكي فن سبورتس حاجة سوفين أنت بتقول صاحبنا مركا واسداس وحقاق هذا وما سنتها الفنان قدر كيو وقلبت قيبك عيارة فرطان كترتك الدقموينك وقلبت كبلتي أما كبلا وميقرون كبنادر استاديوم وعنا مقدشة ما أنت إيه وبلا ومي عياري ترتك الدقموينك ودمان لوضع سنة إيضونا الدقموينك إيه قلبت كسوب بنيجين أما يكسوب بنيجين قرون كبنادر استاديوم بلا بشيء يسلو كل الدبال دقيو عيارها مركز لغو موجنيو دغدي لحدني سنات واسك قبل عيارته degmada waa bari waxay u muuqataa inay galabta dabaaldeg ugu laaba doonto xaafadaha kala duwan sida March October iyo sidoo kale UNICEF iyo ilaa iyo meelo kala duwan oo degmada waa bari ay ka mid tahay sida buudooyinka oo caan ay ku tahay wagaag
weerar ayay madakan wada ciyaartooyga degmada Waaberi oo ay soo saareen daqiiqadii 65 ayay daawada ciyaarto maraysaa markaana xidigaha degmada Dharkinley ciyaaryahan Jaamac ayaa sameynaya fursado kala duwan oo ku saabsan ciyaartan habka ay u ciyaarayaan waagaag xulka degmada Dharkinley markaan weerar ay ku jiraan dhanka garabka ayaa la soo dhigay tartanka degmooyinka waa tartanka labaad ee ugu taageeraha badan marka laga reebo tartanka maamul goboleedyada oo isaga mid kale oo xamaasad badan leh iyadoo dad badan ay ka soo qayb galeen ciyaarta furitaanka waagaag waayay markaana ciyaartooyga degmada Waaberi markaan weerar ay wadaan ciyaaryahan Cabdiraxmaan goolkii labaad waa kana Ali Tunel laba gool ayaa laga dhaliyay goolkii labaad ciyaartooyga degmada lagu magacaabo Dharkinley goolkii labaad ayaa laga dhaliyay ciyaartooyga degmada Dharkinley kontra attack waxa soo abuuray ciyaaryahan Cabdiraxmaan saadaqna marka tobnaad ayaana si qurux badan u doomarsiyay xulka degmada Dharkinley كيبا وضيفاندي وعمرو نرجع نيجي هذا وحالنا كيبا عادي ما عيار تجربته عيار عادية في حماسة بدنا حاطة هذا يا اللي كيني إن شاء الله أنا هو تيم كيجا هو تيم كيجا مريم ciyaaryahanka lambarka 10aad ee degmada Waaberi ayaa dhaliyay goolka labaad ee xulka degmada Waaberi xidiga lagu magacaabo Saadiq oo sanadkii hore kamid ahaa ciyaartooyga halboolayaasha xulka degmada Waaberi mid kamid ah ciyaartooyga xoogga leh ee degmada Waaberi mid kamid ah laacibiinta ay ku soo shartageen labadii sano ee la soo dhaafay xulka degmada Waaberi ciyaaryahan aad u wanaagsan oo kamid ah laacibiintii u sahashay xulka degmada Waaberi inay gaaraan finaalkii tartanka degmooyinka sanadkii la soo dhaafay uu jiray ciyaartooyga degmada Boondere oo ay kula kulmeen ciyaarihii knockout-ka xulkii degmada Hilwa ee maaraha loo waayay ayuu sidoo kale jiray laacibka lagu magacaabo Saadaq galabtan waxa uu qabeynaya xulka degmada lagu magacaabo Dharkinley ciyaartuna waa 2-1 boodboodkii barbaarta Dharkinley balaaya ayaa ka dambeysay sidaa darteed waxa hadda loo muujinaya in xulka degmada Waaberi xul xoogan oo markale u muuqda in tartanka uu difaaci karo sidaa darteed 2 gool iyo 1 ayaa lagu macsalaameey doonaa xulka degmada lagu magacaabo Dharkinley waxay sameeyeen ciyaaro wanaagsan waxaana ay la soo shartageen xul markaas tayo wanaagsan leh laakiin dabaaldega Waaberi ilaa sanadkii hore ilaa hadda wali ma uusan istaagin Waaberi wanaag badan oo walaalihi way wataan waa xul aad u adag haddii tartanadii hore degmooyinka xululkii qaaday ay ku fashilmeen bil ciyaarihii bilowga Waaberi waxay u muuqataa xul mar kale difaaci kara tartanka degmooyinka xaafadaha kala duwan ee degmada Waaberi ayaana aad loogu dabaaldegayaa galabta ilaa buundooyinka labada buundo ee degmada Waaberi sidoo kale xaafadda ama waaxda maaj ayaa sidoo kale laga dabaaldegayaa ciyaartooyga lambarka 10aad Saadaq ayaana markaasi u muuqda nin markaas si fiican u ciyaaray kulamadan waagaag degmada Waaberi waa degmo qadiimi ah marka loo fiirso xilliga markaasi degmadan loo aqoonsaday waxaana degmadan weligeed caan ku ahayd ciyaaraha tartanka degmooyinka isdhexgalka kooxaha waagaag Dharkinley waxay u muuqataa inay ka soo laaban karin natiijada ciyaarta siday tahay goolashii hore asaad la sabiqeed goolashii hore asadali 3 gool ayay ahayd laba hadda heestaa balse kulli ciyaartan waxaa la dhihi karaa lama kala hadda mooyaane وهجاج تاجرياش دقمدا وبري أياد ودبل كواسي وقالت موجني إني مركزي هيستان فرصة وقفي عن عيارها أنا أيوات كأكرن حركة دقمدا لو مجعبه مركز واقع كتر أتاك دقمدا وبري مركز جول كيس دحدا يودان وجول كيس دحدا وكان عياريان صادق وبدك نحكتورا يسمي لكن وقدميتي ما يسندعين وقدميتي ما يسندعين دقمدا وبري ولا لي ويسوتان وهاي لي لما بقول عيارته ودمادا عيارته وصودا ما دونتا تضمانات الدقاية مرسى عيارته وقتي مركز عادي قايا صودا مانيا وحان لو قدر دونا وقت قديري وكليه حلقة دقمدا وبري waxa uu muuqdaa inuu bilaabashada tartanka degmooyinka waa inuu markaas guul gaarayo waxa lagu daray 3 daqiiqo oo qura 3 daqiiqo ayaa lagu daray waqtiga dheeriga ah degmada Waaberi oo caan ku ah ciyaaraha kala duwan ee tartanada waxa ka dhisan kooxaha heerka koowaad degada oo labadii sano soo dhaafana koobka tartanka horyaalka koowaad madbacada horyaalka heerka koowaad ka ciyaarta
kooxda FC Rajo oo horyaalka heerka labaad ka ciyaarta iyo kooxa kale ciyaartooy kala duwan ayaa kooxdan ama Waaberi markaasi u soo ciyaareen waxaa ka mid ah Cabdulqaadir ama Abuukar Islaaw oo madbacadda soo maray sidoo kale Shiiqa laacibkii madbacadda iyo ciyaaryahanno kala duwan meelo kala duwan oo degmada Waaberi ka mid tahay ayaana aad loogu dabaaldegayaa sida hanti wadaag October horseed iyo waaxda match oo markaasi caan ku ah sportska isdhexgalka Harun ayaa kubadda markaan soo qaaday xulka degmada Dharkeeley ugu dambeyntii markaan waa laga soo saaray golayaha xulka degmada Waaberi ayaa kubadda markaan haysta golayaha xulka degmada Waaberi waxaa lagu magacaabaa Zakariye waa naftii hore u diyaarsan galabta inuu isku dhigo kubadda walba oo ka yimaada xidigaha degmada Dharkeeley 71 daqiiqo ayay maraysaa markaan xidigaha degmada Dharkeeley waa kana ayaa ranka lagu magacaabo Harun Cabdisataar sanadkiisii afraad ayuu ciyaarayaa bawl ayaa markaa lagu galay ciyaaryahanka lagu magacaabo Harun waxaana bawlka sameeyay ciyaartooyga la marka 15aad ee degmada Waaberi ciyaaryahanka la marka 15aad ayaa qaladkan sameeyay laacibka lagu magacaabo Cabdishakuur Cabdulqaadir Maxamed oo isaga ah ciyaaryahanka ugu safashada badan ciyaartooyga degmada Waaberi sanadkiisii afraad ayuu ciyaarayaa boosii labaad ayaa la bixiyay waxaana qaatay ciyaartooyga la marka 15aad Cabdishakuur hadda labada xul waa isku mid laakiin waxaa la yaab ahayd in xulka degmada Dharkeeley laga dhaliyay gool iyadoo 10 ciyaartooy ay ku ciyaareen ciyaartooyga degmada Waaberi oo 10 nin ku ciyaaraysay ayaa goolka labaad ka dhalisay xulka degmada Dharkeeley degmada Waaberi ciyaartooygooda ayaana markaan laga soo saaray ciyaaryahanka la markii lixaad ayaa qaatay calaamadda casaanka ciyaaryahanka la markii lixaad ayaa qaatay calaamadda casaanka waxaana ninkaas lagu magacaabaa Cabdisalaan Xuseen Siyaad ayaa qaatay calaamadii labaad oo roos ah furitaanka tartanka degmooyinka 3 daqiiqo ayaa markaan gabagaba ah waxaa markaasi ciyaarta ay maraysaa daqiiqadii 73aad barnaamijka markaan waa la soo qaaday ciyaaryahan Harun Cabdisataar xulka degmada Waaberi ayraada degmada Dharkeeley wiilka ku soo caanbaxay xaafadda suuqyaraha oo banaanka ay marseen xidigaha degmada Dharkeeley waa ay dhamaatay ciyaartii laba gool waxaa ku badashay xulka degmada Waaberi saadaashii alfanan qadarkayowna waa ay soo cadaatay waxaan leeyahay hambalyo Waaberi xagga Dharkeeley insha Allah waxay waxa ay ciyaaraha furitaanka kulankii koowaad ee u dhaxeeyay labada degme ee kala Dharkeeley sidoo kale degmada Waaberi waanu mahadcelinaynaa fanaanka maanta waqtiga uu siiyay Stan Sports ee markaasi uu ku falaqeynayay kulanka xiisaha badan ee u dhaxeeyay labada degme ee kala Waaberi sidoo kale Dharkeeley tababaraha degmada Waaberi ayaan qanacsaneyn oo ciyaartoydiisa la doodayay sidoo kale qaybta maamulka sidoo kale jamaahiirta degmada Waaberi ayaa dabaaldegaya qaybta waraysiga ayaan u gudbi doonaa iyo sidoo kale wariyaheena MM Shoble جروبك كل الكواد عيارها كبد عاد تجمعين كول كبرادر لو كنت زي طبعا حنا عيارتك كنا عي حيوان بدنا عجيبة كابتن هارون مرة لبعض الجامين هذا الكيلة كل كواد يعني كبدي والله تبرون عيار ولا يسمع عيار في إله ما في كلام أو كنا عصنا وخارنا عيارته أمور ساعة خلط كان يقولنا معلي كان إن شاء الله عارفين خلط ما ترى رعينا أنا سأقول دردي ما تدري شيء أفكر إذا أنا مثل أنا يعطوني جروب كستقر سووا من كده والله لما أسمع يا كقا لقى قاتوا وابري هذا مثلا شبك حتى ما ذا قاري حيد كده أنت طريق إن قدر الله بقى يبرع أي كلا كون تاني يعني
كذا بك ما ظن كل يعني نقولش إنه كذا بك يعني معنا كل وجهك إن شاء الله كل موسى سعد كذا كاس بس كنا يلذي جروب عيار يسار مشان كوحة سرت كي هرت نتيجة في عمان كريم وحنا هاد كابتن كي مرة ولا كابتن كتر محافل إن شاء الله تفهم ولا حد يسكرين يعني نصير كانت سواء هركم شيئا كل طول أبوه رسول على معنا كنت على معك كل ما تنور على الحلقة وإن تبي في عن على المقاين أصحنا للبعية إن شاء الله كل نصيب مع المسود هذا لو إذا بدل دق سميسي عيارته وبرك جول جاري اللي أفر بدل هل تسمع معنا كست سيابده وقولي لا أنا جنرت جول اللي ولا هاي لبدأ تقول حملة إنه إلهي حقي سأكيم هذين ويبنوني هذا برق ما في عنين بس الله كيس نصيبك عقد نقضي أنا وعملينا صح هذا عيارته أو طلق الشيء مياه كم مقرأ والله شعرنا عيارته نوم مقنا ويجرنا ويفريين بس لاكس مقدم إنا وحسنا رجينا ياخشيد شنغاني كاران وياخشيد يشنغاني يو دقمدا كاحد لغو مقعابا أي جروب تهين أفرق ولاد عيار إنسان جيم كواد اللي كبديه جروب كمان جروب بدن أضل بكم بديه حتى ولا حد بيعله عيار هرسا جروب ذي كواد ما حد كجريت والله قول درد إنه كواد هذا محمنا بس لاكيس رجال مركز تو وفي عن تسوته كل ما ذكرنا إن ساعات كنا أرجع. ما صرت معلمو دقمة وبري ودلي جول كواد ترتك عيارها كبدا عكتا دقمة جول كبراند سورو جول بريزون يا دلي سياد وروح بدن مركو هذا عيار يساعد دقمة ما هو مركل بعد دقمة كان عيارها سنة كان وحن كرجونا مركل إن شامبيون أنا خلنا دقمة أن ودفاع دون دقمة ما دام أن دلي فرتان كترتين دقمة أنا كرجنا سنة كره حتى أنا فر لكن إسامح هو سنة كانوا إلهي عرف كي ودر إن نقول كبلسونك راليو أدي هذا مفرح سنة ما حد رأيت بركة على السواحة هذا اللي هي جول كوالي ترتك جودة هاندليا تاسمح كذا كذا تاسمح كذا كذا أنا جو شامبيون كوجوشي ودم بفينال كأهل ودلي عملنا كوب أنكو خاله عمل إلهي وأنا مركي لبعض ترتن دقمويك يارا نقول أن اللي سنة كورن السنة كل جوشي أنا اللي لقطوات يارا دقمويك جوشي وري أنا اللي هذا السلوك المركلة أنا اللي وقف راح سنة في لسان waxaan filaynaa inaa tartanka intifaacno oo meeshan meel ka fiican si aad gruubadan si awood leh oo soo baxno aad ma santa waa bari wanaag badna walaalaha way sootaan aad ma santahay tali soo dhaw tartanka wuu furmay hadda sanadkii koowaad ayana waa sanadkii markaas kulankii koowaad ee la ciyaaray door aan ka qaadanaysaa bismillaah alxamdulillaah waxaan ka qaadanay dhinaca amaanka waa dareemaysaa maanta amaanka si loo adkeeyay boqolkiiba 200 waxaa ka qayb galay dhammaan ciidamada kala duwan ee booliska Soomaaliyeed nooc kasta yihiin birmadka iyo daraawiishta iyo qaybta guud iyo degmada Cabdicasiis booliskooda iyo nabad sugidooda iyo maamulkooda ilaahay baa ku amaanan si nabadgelyo noogu dhamaatay iyadoo qofna wax ku gaarin waxaan rajaynaynaa inay si nabadgelyo noogu dhamaato sanadkoo dhan ciyaarta loogu tala galay Astaan TV waxaan u rajaynaynaa guul ciid wanaagsan maadaama ka qayb qaadatay live ay tabinayaan meelaha quruxda badan sida ciyaaraha iyo dadka shacabka soo dhaxgalayaan welcome everybody qof kasta oo yaqaan qofkan aqoon thank you aad ma santahay oo ku faraxsanaanay waayahay saaxiib yaal sidaad arkaysaan ba waxa soo ilaaday kulankii koowaad tartanka ciyaaraha kubadda cagta degmooyinka gobolka Banaadir 2018 qaybta shirka jaraa'idda gudoomiyaha sportska ayaa idin ku xirinaa Yes. He can. Harun is Borga. Aye. Borga.
الله يقبل يا عمانو.